بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرت عاو حاجرو big announcement جرو إن شاء الله تعالى وحوايس بدل بدن أو ضلك كجرا أوجي طور الشدي أو سلامتنا أخيرت الأمان وحنوصل فوله مسؤول سر عبد الله بريزي أبان كو سلامة يعني أحمد يورو جيلاني عايزينك شيء ما يمسانه أو سلام marka marna insha Allah taala inaan ku daaho waxaan rabaa wax yar announcement yar inaan soo gaarsiiyo kadib markaan fiirino waxyaabo badan maslaxada maaragtay oo reer koonfur galbeed marxaladaha dalka hadda uu maraayo dhinacyo badan markaan fiirinay waxaan door bidnay in aan ka fogaano wax walba oo abuur kara khilaaf maadaama doorasho inuu soo fool leedahay dalku waa ogsoontiin waxaa maaragtay gobolka intiisa badan waxaa haysta argagixisada haysato political crisis kala reer koonfur galbeed hadda ma qaadi karaan oo kuma sii darsan karno marka waxaan door bidnay haddii alla idmo dhalinyarada reer koonfur galbeed badankood kulamo badanna dhex maray waxaan maaragtay go-aansanay in aan ka fogaano wax walba oo abuuri karo khalkhal siyaasadeed khalkhal amni wax walba abuuri karo sidaa daraaddeed waxaan door bidnay haddii aan la idmo inaan maaragtay buuxdo aan u taageerno codkeena aan u siino madaxweyne Sheekh Xasan Sheekh Aadan isagana uu soo laabto annagoo eegayno in maanta uusan waxba noo soo kordhinayn maanta isbedel siyaasadeed oo maaragtay haddii aan dhahno maamulka isbedelaha lagu sameeyo siyaasiga kala iman doono we never know wax uu noqon doono ma hubno inuu noqon doono qof dhamaystiri karo hawsha hadda halkay joogto ka qaadi karo ay geyn karo meeshii loo baahnaa lama hubo waxa uu noqon doono anyway wax walba ay ahaataba marka waxaan door bidnay oo aan maaragtay jeclaysanay markaan maaragtay madaxweynaha wada hadal dheer aan la galnay aan la sheekaysanay wuxuu noo soo bandhigay in maaragtay waxyaabihii uu qabtay iyo halka uu hadda hiigsanayo marka dabcan wuu naga qanciyay madaxweynaha aad uu nooga qanciyay inaan maaragtay aan taageerno sayid axmed wiil qaarnoo ku salaam walaalkay of course laga yaabay inaan maaragtay waxyaabo badan isweydiisid laakiin insha allahu tacaala maaragtay wadahadalkii dheeraa ee dhex mara annaga iyo dhalinyaro badan aniga aan ka mid ahay iyo madaxweynaha iyo waxa uu noo soo bandhigay aan rabaa inaan idinla wadaago abti meela tagays insha Allah abti aniga maslaxada oo koonfur galbeed muhiim ah mar walba horta waxa muqaddas ah oo lama taabtaan ah in maaragtay aysan dhalan maaragtay waxa la dhahay khalkhal siyaasadeed iyo khalkhal amni inuusan marna dhalan ilaa hadda gobolka intiisa badan uu naga maqan yahay marka waxaan rabnaa see maaragtay wax lagu badbaadin karaa inaan helno wax lagu badbaadin karaa waxay tahay maamulkeena hadda dhisan inaan horta aan dhidabada u aasan sababtoo ah intii sano uu dhisnaa annaga ismeynaan garab taagin bannaankaan ka taagnayn laakiin hadda waxaan ku qasbannahay si maaragtay oo bal aan meesha aan joogno uga dhaqaaqno waxaa qasaba inaan taageerno marka sayid axmed walaalkay aqoon-yahankeenaa tahay mas-uulkeenaa tahay waxa waaye wax badanaan ku qirsannahay marka aad leedahay isbedelka waa muhiim waxa waaye waxa aad raadinayso waa maslaxadda iyo wanaagga reer koonfur galbeed waa fahansanahay laakiin walaalkay waxa maaragtay su-aasha meesha taallaa waxay tahay markaad tusaale yar kuu soo qaato dowladdii maaragtay oo xasan sheekh maxamuud meeshii ay joogtay wixii meeshii ay joogeen maanta ma joogaan isbedelaa la doorbiday laakiin isbedelkii aniga waa jeclahay nabadii nol aad aan u taageersanaa laakiin marka laga soo tago systemka dowlad wanaagga iyo waxyaabo badan ay dowladda ku fiican tahay laakiin wax isbedel weyn oo muuqda habeeraatee ma jirto ma fahantay marka annaga statekan kuma dhiiran karno inaan dhahno isbedel aan rabnaa ma ku dhiiran karno waxaan ugu dhiiran karnaa waxay tahay waxaa muhiim ah horta waxa hadda dhisan ee samaysan inaan dhidibada aan u aasno aniga qodobka aan ku qanca idin sheega aniga isbedelka dadka u leynaan ka mid ah laakiin qodobka aniga aan ku qanca waxay tahay madaxweyne Sheekh Xasan Sheekh Aadan annaga hadda aan maaragtay bannaanka dadka iyadoo bannaanka ay ka istaageen la mucaaraday oo laga soo horjeestay ayuu wax badan oo achievements uu gaaray maanta miisaanka siyaasadeed ee koonfur galbeed ku leedahay Soomaaliya dhexdeeda isteedada qaarkood kuma laha waliba waxaan dhihi karaa ilaa 3 state ilaa 3 state oo kale kuma laha because of madaxweynahan waa isaga kaligiisa intaas marka ka warrama haddii reer koonfur galbeed ay isgarab taagi lahaayeen oo maaragtay
oo ay maaragtay garab u noqon lahaayeen argagixisadan dhulka waa laga saari lahaa. waxaa kaloo imaan lahayd in maaragtay madaxweynaha waxyaaba badan uu qabto marka qofka adiga aad taageertid oo aad garab taagan tahay oo aad dheecdid waxa waaye wax waa ku qabsan kartaa, waa la xisaabtami kartaa. laakiin nin aad banaanka ka istaagtay lama xisaabtami kartid absolutely. waxaa hore ugu fashilmanay xildhibaanada federaalka ee 71 iyo 72 wixii ma garanaya maxay nagu soo kordhiyeen, waxba naguma aynan soo kordhin. marka hawkan baan ugula xisaabtami karnaa marka nin annaga aan banaanka ka istaagnay aan mucaaradnay ma soconayso, ma fahanteen. marka haddii alla idmaayo waxaan leeyahay walaalahay reer koonfur galbeed dhammaantiin aan ka talino aayaha stateka aan fiirino maslaxadda maaragtay halka inoogu jirto, aan fiirino sidii aan meesha aan joogno uga sii dhaqaaqi lahayn. haddaan madaxweynaha taageerno waan la xisaabtami karnaa, laakiin haddaynaan taageerin waxba kulama xisaabtami karna. sababtoo qof adiga aad marka horeba aad raacdaysatay maxaad kula xisaabtamaysaa? waxaad kula xisaabtamay meesha ma yaallo. marka wax dan ah nooguma jirto walaalayaal, wax dan ah nooguma jirto in aan maaragtay meel cidlaa mucaaradad raqiis oo waxba aan soo kordhinayn inaan maaragtay aan kala soo horjeysano. cabdikariim waa salaaman tahay saydi, si fiican kuu salaamay. marka wax mucaaradad raqiisa maaragtay waxba nooma soo kordhinayso. marka insha allahu tacaala sababaha maaragtay waxyaabaha oo xukuumadda u qabsoomay, sababaha aan ku taageerayno, waxyaabaha madaxweynaha u ballan qaaday intaba waa soo bandhigi doonaa haddii alla idmo. laakiin hal midaan idin sheegaa waxa waaye ma dhahayo aniga mucaaradku way qaldan yihiin, dad xun waayo, waxaasoo dhan ma dhahayo. waxaan ku dhahayn waxay tahay laftigoodu waxay raadinayaan maslaxadda stateka raadinayaan. laakiin walaalayaal yaysan nala tagin siyaasi maaragtay danley ah ee dantiisa raadinayo. siyaasadda wuxuu mansabka uu rabo uu ku gaari karaa kuwii ku horreeyay inuu isaga xumeeyo, kuwaas inuu xumaan ku sheego, kuwaas inuu maaragtay ciladahooda uu raadiyo. marka maanta koonfur galbeed ma awoodo, waktina uma hayso khilaaf iyo maaragtay mucaaradad raqiis ah. waxaan dhihi lahaa aan ku talin lahaa inaan ka gudubno, inaan maaragtay aan u hiilino xaqa, aan u hiilino, inaan u hiilino maaragtay maamul wanaagga, inaan isgarab taagno waxa hadda noo dhisan. war hadda haddaan maaragtay aan kan saan aan ku dhamaysano aan dhahno maya maamulkan ha baxo, maamul cusub ha yimaado, rag kalaa mucaarada, raggaas iyagana banaankay ka taagnaanayaan. horta bal midkii ugu horreeyay aan isku raacno, ma fahanteen? midkii ugu horreeyay aan isku raacno, kadib wixii maaragtay yimaado ilan madaxweynaha marka hadda wada taageerno annaga waxaan dhihi karnaa madaxweyne annaga waa ku wada taageernay, xukuumaddaada waa garab istaagnay, intaas kugu tabaynaa, waxaas u baahannahay, kaanaa u baahannahay, waxaa laga waa dhihi karna waa la xisaabtami karnaa. laakiin ka hor waxaan kula xisaabtanna haba yaraatay meesha ma taalo. marka insha allahu tacaala waa soo bandhigi doonaa sababaha keenay inaan maaragtay waxa khasbaayo kalifayo inaan madaxweynaha isgarab taagno, in maaragtay maamulkeena aan ilaashano, in maaragtay aan ka shaqeyno dowlad wanaagga iyo dhowrista nidaamka. waxa kalifaay iyo maaragtay waxa hadda aan u baahannahay, waxa inaan ka fogaano loo baahan yahay. waxyaabahaas oo dhan insha allahu tacala waan ka wada hadli doonaa, kulamadeen dambe aan kusoo bandhigi doonaa. just hadda keliya waxaan ugu talagalnay announcementigan inaan soo gaarsiiyo ummadda. marka intaasaan kusoo koobaa insha allahu tacala. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.